soo dhawaada saaxiibayaal wiilkii sirta films sheekadeenu waxay ku bilaabanaysaa sanadkii 1943 midowgii Sofiyeeti 8 bilood kadib dagaalkii Stalingrad ciidamada Jarmalku dib ayay u goranayaan laakiin Lieutenant Philips iyo kooxdiisa taangiga ayaa gadaal u haray si ay u joojiyaan cadawga inay buundada ka soo gudbaan buundada ayaa qarxi doonta daqiiqado yar gudahood laakiin Philip wuxuu cadawga celin doonaa inta uu awoodo waxaa harsan oo kaliya 5 daqiiqo ka hor inta aysan buundadu qarxin dhererkeedu waa 600 oo mitir Philip wuxuu amrayaa kooxdiisa inay dib u gurtaan waxayna bilaabeen inay gudbaan iyagoo cadawga rasaas ku hayo laakiin dib ayay u dagaalamayaan taangigana way wadayaan diyaaradaha cadawga ayaa xagga sare ka soo weeraraya taangigana dab ayaa qabsanaya holcuna gudaha ayuu u soo gudbayaa laakiin ma istaagayaan wayna sii socdaan kadib Philip wuxuu buundada ku dhex arkayaa deero dirqi ayayna ku badbaadayaan Philip wuxuu helayaa howlgal cusub oo la yiraahdo howlgalkii murugada wuxuu sii dhaxmarayaa goobta dagaalka si uu kooxdiisa u gaadho taangiga ay hagaajinayaan wuxuuna hadda diyaar u yahay inuu dhaqaaqo Philip wuxuu u sheegayaa in fasaxoodii la joojiyay waana inay maanta baxaan oo ay u jihaystaan bari iyagoo ka gudbaya webiga Seel una gelaya dhulkaan cidna haysan howlgalkoodu waa inay helaan Colonel von Enderbench oo ay soo celiyaan waxay u maleynayeen inuu dhintay laakiin uu nool yahay waana inay helaan kaligood ayaana tegaya sababtoo ah kani waa sir culus waxaa la aaminsan yahay inuu ku dhuumanayo dhismayaal dhulka hoostiisa ah oo bari ka xiga Naifor Philip wuxuu amrayaa inay taangiga diyaariyaan wayna dhaqaaqayaan jidka dhexdiisa waxay ka hadlayaan von Enderbench wuxuu la joogay ciidankii lixaad ee Stalingrad markii dadkii kale oo dhami ay baxeen wuu badbaaday laakiin gacan ayaa ka go'day wuxuu ka hoos go'doomay burburka waxaana khasab ku noqotay inuu gacantiisa jaro si uu u xoroobo qaarkood waxay u maleynayeen inuu hadda yahay basaas ruush ah wuxuu ku badbaaday dhuumaalaysi markii uu soo laabtayna ciidanku dib ayay dagaalka ugu direen Philip wuxuu sharaxayaa in von uu ka shaqaynayay qorshe bixitaan oo sira wuxuu hayaa xog ciidan oo muhiim ah oo aan gacanta cadawga geli karin taasi waa sababta ay ugu baahan yihiin inay soo badbaadiyaan saacado ayay safreen habeenkii ayaana dumay sidaas darteed taangiga ayay keenta geliyeen si ay u nastaan Philip wuxuu u sheegayaa Michael inay waardiyaha koowaad wada qabanayaan Michael wuxuu leeyahay saaxiibtiis ayaa u sheegtay in keymaha ay ruuxan ku jiraan nafaha dadka dhintayna ay halkan ku wareegaan hameel ayaa ku maadaysanaya Michael inuu gabadhaas rumaystay oo wax yar kadib Philip ayaa waardiyaha qabanaya Philip wuxuu Michael u sheegayaa inuu iska indhatiro maadaysiga hameel wuxuu dagaalka ku waayay wiilkiisii 15 jirka ahaa malaha kaftanku waa qaab uu ku muujinayo inuu Michael danaynayo subaxdii xigtay way dhaqaaqayaan waxayna raadiyaha ka maqlayaan duca laatiin ah taas oo la yaab leh sababtoo ah dadka halkan jooga oo dhan waa Orthodox raadiyaha ayay deminayaan waxayna gaarayaan dhufaysyo loogu talagalay in lagu celiyo taangiyada Michael wuxuu weydiinayaa cidda dhistay Philip wuxuu leeyahay ciidankooda ayaa ku qasbay maxaabiista cadawga inay dhisaan kuwii shaqada awoodi waayay waa la dilay oo halkaas ayaa looga tagay taangiga ayayna daldaloolada ka dhex saarayaan waxayna gaarayaan meel bannaan Philip wuxuu dhulka ku arkayaa calaamad khatara isla markiibana taangiga uu joojinayaa halkan miino ayaa ku aasan Philip Michael iyo Kalian ayaa soo degaya si ay miinooyinka u baadhaan Philip wuxuu baarayaa hareeraha taangiga wuxuuna helayaa miino ku taala taangiga siseeldiisa hoostiisa wuxuu u yeedhayaa Michael si uu uga caawiyo furfurideeda Christian ayaa meel fog ka arkaya taangi Philip wuxuu ku amrayaa inuu isha ku hayo Philip wuxuu waayay wax fiilooyina oo miinada ku xidhan wuxuuna Michael u sheegayaa inay khasab tahay inay kor u qaadaan markay qaadeen Michael wuxuu hoosteeda ku arkayaa bambo si degdeg ah ayuu gacanta u saarayaa si uu u celiyo waa dabin kale ku dhex jira hadda Michael halkaas ayuu ku dhex xayran yahay taangigii fogaa uu dhaqaaqay Philip wuxuu kooxda u sheegayaa in taangigu ka muhiimsan yahay wuxuuna amray inay dib u kaxeeyaan Philip wuxuu soo qabanayaa xadhig wuxuuna u taagayaa Michael wuxuuna xadhigga ku xidhayaa miinada wuxuu Michael u sheegayaa inuu si tartiiba gacanta ugala baxo Michael uu la baxayaa gacanta miinadu ma qarxin dhammaantoodna taangiga gadaashiisa ayay gelayaan Philip wuxuu xadhigga u dhiibayaa Michael wuxuuna u sheegayaa waxa la sameeyo Michael wuxuu jiidayaa xadhigga miinadiina way qarxaysaa
motoorka waxayna qarxinaysaa dhammaan miinooyinkii kale ee hareeraha yaalay. Philip wuxuu ka fakarayaa qoyskiisa, laakiin xasuus madow ayaa haysata. Si lama filaan ah, taangi culus ayaa soo weeraraya. Hal xabad ayaa burburin karta. Waxay isticmaalayaan qiiq si ay u baxsadaan, laakiin 3 taangi oo kale ayaa dhinacyada ka imaanaya. Way go'doonsan yihiin. Dhinacooda kale waxaa awobi. Philip fikrad ayaa u soo baxaysa. Wuxuu Hemel ku amrayaa inuu webiga aado. Waxayna gaadhayaan webiga. Philip wuxuu amrayaa in qof walba diyaar garoobo. Wuxuuna kooxda u sheegayaa inay taangiga Tiger u diyaariyaan quusitaan. Dhowr xabadood ayaa ku dhacay. Khatarna way jirtaa inuu biyaha ku dego. Laakiin Philip wuxuu leeyahay doorasho kale ma haysano. Way diyaarinayaan. Webiga ayayna gelayaan. Taangiga gebi ahaanba biyaha ayuu gelayaa. Philip wuxuu Hemel ku amrayaa inuu motoorada damiyo, sababtoo ah codkooda ayaa aad u dheer. Cadowguna wuxuu arki karaa qiiqa. Hemel wuu diidayaa. Haddii motoorku bixi waayena way wada hafanayaan dhammaantood. Laakiin Philip amarka ayuu ku celinayaa. Hemelna wuu daminayaa motoorka. Biyaha hoostooda ayay ku jiraan. Taangiguna meelna kama daloolo. Waxay maqlayaan taangiyada cadowga oo dushooda maraya. Way dhaafayaan. Philipna wuxuu go'aansanayaa inay sii joogaan si ay u hubiyaan badqabkooda. Muddo kadib, biyo ayaa soo gelaya taangiga. Waxayna go'aansanayaan inay dibadda u baxaan. Hemel wuxuu isku dayayaa inuu motoorka kiciyo, laakiin wuu u kici waayey. Isku day badan kadib, ugu dambeyntii wuu u kacayaa. Dhinaca kale ee webiga ayay u baxayaan. Philipna wuxuu amrayaa in motoorada la damiyo. Wayna nasanayaan. Hemel wuxuu u sheegayaa inay haystaan shidaal 20 kiiloomitir oo kaliya geynaya. Habeenkii ayaa dumay. Wayna safrayaan. Philip wuxuu xasuusanayaa maalmihii hore. Von Henderbench wuxuu ahaa saaxiibkiisii hore, laakiin waxbaa dhex maray. Kamana hadlo arrintaas. Philip wuxuu siinayaa dawada Berefint, nooc daroogo ah oo askarta la siin jiray si ay u soo jeedaan. Wuxuuna leeyahay waa inay habeenkii oo dhan socdaan. Philip wax ayuu arkayaa. Wuxuuna amar ku bixinayaa in taangiga la joojiyo. Wuxuu leeyahay kuwani waa askarteennii. Meesha ayay tegayaan. Askartu dad ayay jiidjiidayaan. Dabkuna meel walba ayuu haystaa. Waxay la kulmayaan hogaamiyaha kooxda Krebs. Philip wuxuu weydiisanayaa shidaal iyo sahay. Krebs wuxuu weydiinayaa waxa ay halkan ka sameynayaan. Philipna wuxuu u sheegayaa inay howlgal sir ay ku jiraan. Askartu waxay wiilasha iyo dumarka ku gurayaan guri. Krebs wuxuu leeyahay kani waa howlgalkooda sirta ah. Dadka deegaanka waa in laga sifeeyo taageerayaasha mucaaradka. Dhammaantoodna meel ayay ku xidhayaan. Dabna way ku qabanayaan. Tani waxay u kaydinaysaa rasaasta. Dadkii oo dhan way gubanayaan. Krebs wuxuu leeyahay wuu ogyahay inay xasuusan yihiin dabkan. Dhammaantoodna waxay xasuusan yihiin militariga ay buundada ku joogeen ee ay ku sigteen inay gubtaan. Krebsna wuxuu siinayaa shidaal iyo sahay. Philip iyo kooxdiisuna way ka tegayaan goobtaas naxdinta leh. Intaa kadib waxaan ku xasuusinayaa inaad like saarto muuqaalka oo tilmaamto inaad like saarto channelkana aad subscribe tiraahdo oo nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay. Haddii aynu u soo noqono muuqaalkeena, kooxdii taangiga dhexdiisa ayay wax ku cunayaan, laakiin Philip waxba ma cunayo. Waxay ka sheekaysanayaan noloshii hore. Weller wuxuu ka shaqayn jiray khamriga. Killinna wuxuu ahaa macallin dhiga luqadda Laatiinka. Hemelna darawal tareen. Killingi wuxuu leeyahay dagaalkan iyo amarada waa wax aan faa'iido lahayn, laakiin Philip wuxuu leeyahay amarada ayaa bini'aadamka ka dhiga kuwa ilbaxa. Hemel ayaa joojinaya howle siyaasad lagaga hadli maayo taangigayga. Weller wuxuu Philip u sheegayaa inuu jeclaan lahaa inuu iloobo qofkii uu ahaan jiray, laakiin Philip wuxuu leeyahay mar walba sidan ayay ahaan doonaan. Kaliya amarada ayay raaceen. Weller wuxuu ku casuumayaa Philip Austria marka dagaalku dhammaado. Maalintii xigtay waxay ku dhow yihiin halkii ay u socdeen. Waxayna arkayaan guri burburay. Philip wuxuu ku amrayaa inay feejignaadaan, sababtoo ah waxay ka shakisan yihiin in dabi loo dhigay. Isla markii ay u dhawaadeenna madfac culus ayaa guriga ka soo dhacaya. Philip wuxuu ka amrayaa inay dib u gurtaan. Waa taangiga culus ee SU-100. hal xabad oo uu ku soo rida ayaa baabiin karta. Rasaas ayay ku ridayaan, laakiin waxba ma yeelayso, sababtoo ah bir adag ayuu ka samaysan yahay. Philip wuxuu isku dayayaa inuu dhinaca ka soo maro. qiiqa ayay isticmaalayaan. hal xabad ayaana ku dhacaysa taangigooda, gaar ahaan meesha uu Killingi joogo. taangiga culus ma aha mid fudud. Philip wuxuu amrayaa inay hore u socdaan. waxay ku ridayaan madfac. taangiga cadowguna uu burburayaa, laakiin Killingi waa dhaawac culus. bir ayaa caloosha ka gashay. waqti badanna ma haysto. wuxuuna codsanayaa inuu bannaanka ku dhinto. bannaanka ayay u saarayaan. Killingina wuxuu Philip weydiinayaa
sheegayaa in arrinta Fawn ay tahay mid shakhsi ah wuxuuna leeyahay warqad u qor qoyskayga ka hor inta aanan dhiman Keelinga wuu dhimanayaa intaa kadibna way aasayaan taangigii ay hagaajinayaan Michaelna wuxuu arkayaa wax yaab leh taangigii cadowga ee ay burburiyeen dhammaan askartii waxay noqdeen qalfoof meydadkuna sidaas aadka u dhaqsiyaha badan kuma baaba'aan Wheeler markuu taas arkay wuxuu leeyahay waa inaan laabanaa meeshani caadi maaha wuxuu kaloo sheegay in haddii Fawn uu basaas noqdo dhammaantood oo dhan gacantiisa uu ku dili doono Philip wuxuu eegayaa meydadka xasuus sare ayaana ku soo laabanaysa taangiga ayayna kaxaysanayaan Michael wuxuu raadiyaha ka maqlayaa nin ku hadlaya Laatiin Wheeler wuxuu Philip weydiinayaa sababta uu Fawn muhiimka u yahay Wheeler wuxuu leeyahay malaha waa arrin shakhsi ah oo u dhaxeeya Philip iyo Fawn Wheeler wuxuu u codeynayaa in Philip xilka laga qaado sababtoo wuxuu u arkaa inuu waalan yahay Michael iyo Hamill ayaa diidaya oo Philip taageeraya Philip saacadiisu waxay taagneed 12kii tan iyo qaraxii boondada roob ayaa da'aya waxayna helayaan raadada askar Jarmala waxay helayaan dabin kale iyo meedada askar hore loo soo diray oo dhintay waxay kaloo helayaan dhufayskii gudahana askar ayaa ku baashaalaya Philip wuxuu u sheegayaa inuu yimid inuu soo badbaadiyo Fawn Henderbench askar ayaa u kaxaynaya Philipna wuxuu la kulmayaa saaxiibkiis Fawn wuu la yaaban yahay inuu nool yahay Fawn wuxuu leeyahay mayaabaa in taangigaas yar lagu soo diray wuxuuna bilaabay inuu qoslo wuxuu weydiinayaa Philip xasuusta Sterlingad xasuusta Philip dhibaysay waxay ahayd in ciidamo Ruusha dumar iyo carruur ay guri galeen Philipna wuxuu Fawn ku amray inuu gurigaas gubo Fawn uu ka gaabsaday laakiin Philip ayaa ku khasbay amarka Philip ayaa taangiga ku gubay qoyskaas oo dhan cuntadii meesha taalay ayaa bilaabaysa inay qurunto Fawn wuxuu leeyahay adiga dartaa ayaan halkan u joognaa wuxuu kaloo ku yidhi miyaad run ahaantii noolayd Fawn wuxuu tilmaamayaa calaamadaha saacadda istaagtay wuxuuna leeyahay tani oo dhani maskaxdaada ayay ka dhex socotaa Fawn wuxuu Philip u sheegayaa inuu dib ugu laabto buundada Philipna wuxuu xasuusanayaa telegram loo keenay oo sheegaya in xaaskiisa iyo ilmihiisa ay ku gubteen guri sidoo isaguba uu u gubay qoysaskii Sterlingad Fawn wuxuu leeyahay safarkaagu halkan ayuu ku dhammaanayaa keeguna mar hore ayuu dhammaaday Philip wuxuu ku soo baraarugayaa xaqiiqda weli wuxuu joogaa buundadii waxaasoo dhanna waxay ahaayeen dhalanteed daqiiqadihii ugu dambeeyey ee noloshiisa Philip iyo kooxdiisuba buundadaas ayay ku dhinteen sheekadeennuna halkaas ayay ku dhammaatay haddii aad ka heshay muuqaalka like saar channelkana subscribe dhe oo nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay halkan waxaan ku soo gudbinaa muuqaalo aad u xiiso badan waxaana inoo balana muuqaalkan xiga